canshuur Cusmaan Abuukar iyo Maxamed Cali Boorow aadan ayaa loo haystaa kamid ahaanshiyaha maleeshiyada Al-Shabaab gaar ahaan inay u qaabilsanaayeen weerarada loo isticmaalo gawaarida dadka lagu horjaray kadibna la huuyay rasaas iyo sahminta goobaha rayidka iyo danta guud oo ay maleeshiyada Al-Shabaab qaraxyada ka fuliyaan. eedeysanaha koowaad canshuur Cusmaan Abuukar ayaa loo haystaa weerar lagu qaaday gaari Hartobland Cruiser ah 15 bishii 8 sanadii 2017. gaarigaasi oo ay saarnaayeen qoyska reer Xasan Cabdi Cawad oo kamid ah maamulka shirkadda Dahabshiil weerarkaasi uu ku geeriyooday marxuum Maxamed Xasan Cabdi Cawad sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 5 ruux oo kale oo kamid ah reerka Cawad dhacdadaas oo ka dhacday agagaarka Digfeer degmada Hodan ee gobolka Banaadir 27 bishii 9 sanadii 2017 ayaa canshuur iyo laba kale oo la socotay ay rasaas ku fureen gaari ay saarnaayeen xogayihii ururka haweenka qaranka marxuumad Canab Cabdullaahi Xanshi iyo wiil ay dhashay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka marxuum Axmed Jaamac Xirsi dilkaas oo ka dhacay isgoyska Via Roma ee degmada Xamarweyne kaliya kuma ekaanin fulinta weerarada qorsheysan ee waxa uu sidoo kale ahaa sahmiyaha goobaha Al-Shabaab ay ka fuliyaan qaraxyada sida lagu daabacay eed ay u soo gudbiyeen xafiiska xeer ilaalinta garsoorka ciidamada qalabka sida waxa uu wada ka ahaa gaari ay saarnaayeen koox Al-Shabaab ee ula baxeen in qamaasiin oo ah dablay hubaysan oo kadib gumaada inta ka hartay qaraxyada ay fuliyaan waxa uu wada ka ahaa gaari qarxay oo ay ka degeen maleeshiyada gashay gudaha hotel Saxafi 9 bishii 11 sanadii 2018 kadib qarax ay ku bilaabeen weerarkaasi sida dhaqankooduba yahay waxa kamid ah dadka ku dhintay 32 qofood uu ku jiro maamulihii hotel Saxafi Cabdi Fataax Cabdirashiid Ilqeyte waxaana ku dhaawacmay 69 qofood oo kale sidoo kale taariikhdu markay ahayd 22 bishii 12 2018 waxaad ahayd abaabulihii qaraxyadii ka dhacay tiyaatarka qaranka halkaas oo ay ku geeriyoodeen 27 ruux oo uu ka mid ahaa wariye Cawil Daahir Salaad kuna dhaawacmeen 55 qofood oo kale iyadoo ciidamada amnigu ay ku soo qabteen kadib markii aad uga degtay gaariga labaad ee saarufka ahaa taalada daljirka daahsoon gaarigaas oo isagana qarxay ayna ku geeriyoodeen marxuumiin ay ka mid ahaayeen 1 Faysal Salaad Samow 2 Axmed Maxamed Yuusuf oo labaduba macallimiin ka ahaa iskuulka Yaasiin Ismaan Maxamed Cali Boorow aadan oo ah eedeysanaha labaad ayaa loo haystaa sahminta qarax ka dhacay 2 bishii 9 sanadii 2018 xarunta degmada Howlwadaag kaasi oo ay ku dhinteen 8 ruux iyo dhaawac 27 qofood oo rayid ah sidoo kale waxa ay wada saarnaayeen gaari ku qarxay daljirka daqiiqada kadib qaraxii ka dhacay tiyaatarka isaga eedeysanaha koowaad 22 bishii 12 2018 gaashaan la sare Cabdullaahi Buula Kami xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa ka sheegay fadhiga maxkamadda in eedeysanaha koowaad uu sameeyay wax ka weyn qofka caadiga ah waxa uu sameyn karo oo dambi ah canshuur da'diisa iyo dhaqankiisa marka la isu fiiriyo waxa uu ku kacay waa jariimo bani aadanimada ka baxsan waa nin ku bahaloobay dhiigga dadka waxa uu ku kacay dambiyada uu ku kacay wax la malayn kara hatta qof caadi ah malayn kara ma way ka baxsan tahay waxaan haynaa cadeymo marxaatiyaal inta kiis oo uu galay oo cajiibka ah maxkamadeenta oo ahayd wajigii labaad ayaa la dhageystay marxaatiyaal dhowr ah kuwaas oo ay si wada jira su'aalo u weydiiyeen dhinacyada dacwadda ugu dambeyn gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaan sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda waxa uu u sheegay dhinacyada dacwadda in la isugu soo noqdo fadhiga oo ay dib ka soo mudayn doonaan xafiiska xeer ilaalinta ayaa laga dalbaday inay sidoo kale soo dhameystiraan cadeymaha kiiskan Cabduqaadir Ciise warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.